السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا كلانتي وعن دمان صاحبada ku xiran boggeyga Hari ENT iyo sidoo kale channelkayga Rajadii Fanka. aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada mar walba sida quruxda badan ugu taxan ama ugu xiran bogga Hari ENT. halkan oo aynu mar walba soo gelino muuqaalo haddii ahaato arrimaha fanka iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi baraha bulshada la isla dhex qaadayo. anigoo jecel in saaxiibada ku xiran boggeyga Hari ENT ay mar walba la socdaan anna aan u soo gudbiyo wixii update ah ee markaasi lagu hadalhayo baraha bulshada si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan arrimahaasi. waxaan idin hayaa oo muuqaalkan aynu ku soo qaadan doonaa halkee buu ku dambeeyay uurkii Rasmi Reis maxayse ka yeeshay. muuqaalkaas ayaan idin wadaa. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee boggeyga fadlan walaal sii share garee muuqaalkan like saar waayo adiga waxba ka tarimayso anigana dhiirigelin ayay ii tahay. saaxiibadaada kalena muuqaalka la wadaag si uu u gaaro. mahadsanidin. fanaanada Rasmi Reis iyo sidoo kale fanaanka Farxaan Yare xiriirkooda markii uu socday muddo dheer kadib waxay isla qaateen in Farxaan uu ka soo daadego amaba u yimaado magaalada Nairobi. Farxaan waxa uu ka soo degay airportka Jomo Kenyatta halkaas ay ku soo dhaweeyeen Rasmi Reis iyo saaxiibadeeda fanka. kadib markii Farxaan si habsami leh loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi waxa ay wada degeen guriga ay ka deganeed Rasmi magaalada Nairobi. Rasmi iyo Farxaan halkaasi muddo ayay ku qaadanayeen waqti noloshooda u gaar ah lamaanahan oo ahaayeen lamaano ay Soomaalida isku barteen. haddaba Soomaalideena amaba dhalinyarada ku xirnayd Farxaan iyo Rasmi dhammaantood sida ay aaminsan yihiin waxa ay tahay in Farxaan markii horeba aysan aqoon oo ay ku barteen fanaanada Rasmi Reis isagoo Farxaan markii horeba ahaa fanaan. muddo iyo waqti gaaban kadib fanaanada Rasmi Reis sidoo kale saygeeda Farxaan Yare waxa ay isla wada qaateen in xafladooda arooska ay ka dhacdo magaalada Nairobi. halkaas waxa ka bacdi ka bilowday qabanqaabada arooskooda. kadib xafladii arooskooda markii ay muddo waqti ku qaadanayeen magaalada Nairobi bartooda YouTube-kana ay ku maaweelanayeen mucaashaqiinta ku xiran waxa ay isla garteen lamaanuhu in ay tagaan magaalada Hargeysa halkaasi oo ay ku lahaayeen taageero aad u fara badan. maxaa dhacay markii ay tageen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland? halkii waxaa ka sii socday jacaylkoodii iyagoo mar walba aan ka daaleyn in ay majaajilo iyo sidoo kale jacaylkooda ay ku soo bandhigaan bartooda YouTube halka sawiraantoodana ay soo gelin jireen barta ay ku leeyihiin Instagram-ka. kadib markii ay muddo waqti ku qaadanayeen magaalada Hargeysa lamaanuhu waxa ay tageen xaflado badan oo ka dhacay magaalada Hargeysa iyagoo shaashadaha ka soo wada muuqanayay. markii ay muddo joogeen magaalada Hargeysa waxa ay soo qaadeen hees lamaanuhu ay wada qaadayaan. heestaasi oo aad ay u soo dhaweeyeen taageero badan ka heshay baraha bulshada. kadib markii lamaanuhu ay muddo joogeen magaalada Hargeysa halkaasi oo ay ka kireysteen guri waqti badanna ay ku qaadanayeen maadaama saaxiibadooda fanka iyo ehelkooda uu halkaas joogay waxaa lamaanaha soo kala dhex galay khilaaf oo labadoodu markaasi si hoosaada ay xalliska u galeen. khilaafkaasi ma ahayn mid ay la socdeen saaxiibada iyo dadka taageerada u ahaa labadaasi fanaan. kadib khilaafkii wuxuu muddo jiitamaba lamaanuhu waxa ay go'aan ku gaareen in halkaasi ay ku kala tagaan iyagoon ku soo bandhigayn baraha bulshada. ha ahaatee waxaa tabay dadkii iyo saaxiibaday ku xirnaa oo maalin walba ka sugi jiray in muuqaalada labadoodu ay soo wada sameeyaan iyadoo shacabka taageeraha oo ahna ay sugayeen in channelka Rasmi Reis lagu qoro magaca ay mitaanuhu ku mideysan yihiin. halkaasi oo ay go'aan ku wada qaateen bartooda YouTube iyagoo si live u fadhiya Farxaan iyo Rasmi Reis. ha ahaatee magacii lama bedelin waxyaabihii ay markaasi sheegeen in ay u soo bandhigayaan ama u soo gudbinayaan dadka taageerada u ahna waa laga waayay. halkaasi waxaa ka bilaabatay khilaafkii oo sii xoogay. lamaanuhu waxa ay ku kala tageen halkaasi oo Rasmi iyo Farxaan calafkoodii intaasi ayuu ku dhamaaday. Rasmina waa la furay. Farxaanna waxa uu aaday ama uu go'aansaday inuu u hayaamo deegaanada uu ka soo jeeday isagoo markaasi safar isugu diyaarinayay Dirdhaba. Rasmi Reis markii ay muddo gaaban joogtay magaalada Hargeysa waxa ay isu diyaarisay in iyaduna ay aado ama ay u laabato halkii saldhigeedu ahaa ee magaalada Nairobi iyadoo kaligeeda ayay ka soo dhooftay magaalada Hargeysa halka shalay iyadoo wadata Farxaan Yare ay tagtay.
markii ay rasmi rays tagtay magaalada Nairobi si qurux badan loogu soo dhaweeyay iyadoo lala wada socdo in Farxaan iyo Rasmi ay kala tageen. Waxaa halkaasi ka bilowday nolol cusub. Rasmi raysna waxaa u bilaabatay bog cusub oo nolosheeda uga furmay. Fanaanadu markii ay muddo waqti fiican ku qaadatay magaalada Nairobi, halkaasna nolol degan ay ku heshay, waxa ay maskax degan ugu fikirtay ama go'aan ay ku qaadatay in ay uurka Farxaan yaro u leedahay ay iska riddo gebigiisaba ama wax ay iska istaajiso meel cad oo nolosheeda ay kali ahaan ku qaadato. Rasmi go'aankeeda waxa uu noqday in cunugan ay iska soo xaaqdo. Waxa ay soo xaaqday cunugii, waxa ay bilaabatay nolol kalinimo ah iyadoo go'aankeedu noqday in uurkan Farxaan ay u leedahay uu noqdo mid ay gebigiisaba banaan cad iska dhigto. Gebi ahaanba sawiradii ay baraha bulshada soo dhigtayna waa ay ka saartay. Mahadsanid walaal, muuqaalka sii share garee.